بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. walaalayaal maanta halkaa waxaan kaga hadli doonaa jacaylka. jacaylkaas ma aha jacaylkii lamaanaha, ma aha jacaylka waalidka ee ubadkiisa ka dhexeeya, ma aha jacaylka walxaha ama sida guryaha ama baabuurta ama maryaha ama waxyaabaha idin korsahan ee jacaylka aan ka hadlayna maanta. qofka muslimka ah jacaylka la rabo inuu ku leeyahay ama uu hayo ilaahay subxaanahu watacaala. bini aadamka waxaa la yidhaahdaa waxay ku jeclaan laba wax. midda koowaad waxay wax ku jeclaadaan quruxda, wixii qurxoon bini aadamka waxa u fudud inuu jeclaado. labo waxa weeye qofku wuxuu jeclaadaa ciddii wanaajisa, ciddii u naxariisata, ciddii wax siisa, ciddii hadal wanaagsan tahay. haddaba walaal ilaahi subxaanahu watacaala quruxdiisa waxaad ku arkaysaa waxa uu abuuray quruxda ka muuqata. wax walba oo qurux badan oo aragtay ilaahay baa abuuray. ilaahay quruxdiisa wuxuu kaa dhex tusay naftaada, sababtoo ah wuxuu abuurayso qurux badan. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إلهي لك قرحتيس halkaa saad ka arkaysaa. ilaahi subxaana watacaala marka waxaa ku waajiba inaad jeclaatid. tan labaad waxa weeye ilaahay waa deeq bixiyaha aysan deeqdiisu istaagin 24 saac second ma istaagin. ilaahay deeqdiisa second haddii kaa bursto waxaad ugu fudud nafta oo kaa baxda, sababtoo ah naftaan aad iskala kala joogtay. dad bay saacadda nafta ka baxaysaa, dad bay hore nafta ugu baxday. waxa weeye ninkii gabayey wuxuu yidhi naftu inay macaan tahay ninkii laga maroo jeedo. wixii kale oo dheeraad oo caafimaadka ah, oo wanaagga ah, oo irsaaqada ah, oo nabadgelyada ah, oo waxa weeye dheefaha kala duwan ah, ilaahay baa bixiya. nebigu sal alla alay wasalam marka uu soo koobay dharkaas wuxuu yidhi man baata aaminan fii sirbihi mucaafan fii badanihi cindahu quutu yowm fakaannamaa xiizat lahu dunyaa bixadaafiha. wuxuu xadiiskaas micihiisu noqonayaa qofkii ku nabadgala habeenkiisa meesha uu seexanayo u hoyanayo isaga oo jirkiisu u caafimaad qabo, waxa weeye maalintaana haystaa wixii uu cuni lahaa adduunyada oo dhan nin la siiyey muhimka. adduunkuna waaba intaa. haddaad maanta nabad ku soo kacday oo waxaa cuntina aa haysatay xanuunna u shaqo waaba intaa waxa la isku laynayo loo ogay. sababtoo ah cid xitaa ma jirto. ninka adduunka ugu lacagta badan waxa weeye hadduu maanta xanuun balaa ku dhaco lacagtiisu caafimaad uma hayso. qofka barwaaqo kasta haysta ama ciidan kasta haysta waxa weeye haddii uusan nabadgelyo dareemin, dadka la waardiyeyo madaxda ah waxaad haysataa baqdin, sababtoo ah waxay ka baqayaan balaayo ceyrsanaysa. marka haddii ilaahay ku siiyey intaas jacaylkiisina waad aragtay deeqdiisa, sidoo kalena waad aragtay quruxdiisa. waxaa ugu waajiba qofka muslimka ah inaad ilaahay jeclaatid. taasna waxay u dhalinaysaa inaad ku raaxaysatid cibaadadiisa iyo xuskiisa, sababtoo ah iyo adeecidiisa. ninka carabka gabayga wuxuu yidhi waxa weye ninka gabayga carabkaha wuxuu yidhi ina almuxiba liman yuxibu yutic. qofka uu jecel yahay waa adeeca. marka walaalayaal iskula dardaarmaya inaan nafteeda ku weyneyno jacaylka ilaahi subxaanahu watacaala. taasna waxay noo keenaysaa miibaan adduun iyo mid aakhiro. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.